dugsiga maamuladiisa kala duwan sare kuuliyadaha masterka waxaa kaloo salaamaya waan mahadnaq u jeedinaya mulkiilaha dugsiga sababtaan ugu jeedinayo mahadnaqu waxa ay tahay maalgelin la sameeyo oo qofku lacag leeyahay wax ku maalgeliyo marka laga yimaado wixii sare taariikh ah ama masaajidka ama malcamadaha wadooyinka waxaa ugu mudan waxbarashada iyo ceelasha biyaha gaar ahaan waxaa mudnaanta koowaad ku leysiin la waxbarashada oo halka diintana lagu baran karo aqoontii kalena lagu baranayo kulley halkan waxaan ku hadlayaa afka mid ka mida waalidiinta inaan ahay waayo wasaaradda waxbarashada runtii wasiir ku-xigeen baan ka ahaa 2016 inta ogaalkii ah Somaliland halbeega sanadkii laga rabo ardayda inay isqoraan dugsiyada waxaa weeye 900 kun oo arday markay timaado dugsiyada hoose iyo dhexe iyo dugsiga ahaan wuxuu ku talo qof walba haddii arday kaloo dheeraada qaadan lahaa inuu dugsigiisa ka bixiyo wixii qalaba ee waxbarashada ah iyo suurtagalnimada ah inuu ardaygaasi dugsiga aado runtii waxay la tahay la gaari karo waayo haddii aynu xagga isdilaalama waxay dowladdu bixin wey haddii tusaalehaan adeegto 900 xagga primary ama dugsiga hoosaadkeeda macallimiinta ay u baahanayaan oo 120 milyan oo dugsiga hoosoo qura qof walba ku warqaba inaanay lacagta taale miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada ka mid noqotay runtii inta ogaalkii ah labadii sano u dambeysay 160 goobood oo dugsi baa la dhisay laakiin waxaan hubaayoo kale 60 goobood oo dalka ku yaala oo mid waliba degan yahay oo arday joogta inaanay weli haysan dugsi iyo habka soo ka dhex dhisan doono qofka kale intii aan arkay waxaa ka mid ah xidhiidh joogta ah amaba inay kullada saacad raxmaan ahaan jirin gurbajooga muwaadkaan jirinay laakiin inay regular update yacni xidhiidh joogta ah ay waalidka la leeyihiin oo runtii dad aada u dhibirsan maamul ahaan iyo macallimiin ahaanba intaba waan arkay deegaanka ku yaallana sidii suxufigeennii heellow sheegay waa deegaanku iskuulku ku yaallaa mid u saamaxaya ubadku inay si fiican wax ugu bartaan marka runtii daanagu waalid ahaan kolka waa idin garab taagannahay wixii idinka qalloocan idin qarin mayno waan idiin sheegi doonaa iyadoo asbuuc aad baan salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu